Hello. Oh my god, I look good without a filter. TikTok le. TikTok, you know, dadku way washaa mugtay aniga waxaan sarkaya boqorad u eg. Right now I look like a princess. Qurxley. Anyway, su'aalo fara badan oo la weydiiyay ayaan rabay inaan ka jawaabo. Jawaabtaydana waxay noqonaysaa waxay ku kooban tahay nin because ninaan ugu wareersan faatay. ba kalmada idin anfacan waa idin sheegaya saad u jeedaba waan labisanay videoyaasheedii kala rabeen iska samaysto so waxaas dhahay had u tooli waa ka caajisi doontaa bal hadda YouTube iska duub maadaama ay gabdhihii qaabana YouTube kusoo noqo hadda way kanam here so mawduucayna geliya markasta waxaa la weydiiyaa nin sa isku jeclaysiin karaa guur xalaala ka hadal qalbiga iga jabay nin lacag saan uga qaadi karaa waa su'aalo igu soo noqnoqday waa su'aalo oo madaxayga mataqaana habeenii maalin dhex jooga I know a lot of you waa fahansantii su'aashan ka hadlaayo waa ka jawaabi kartiin ba gabdhaha qaar mataqaana waxay rabaan inay iga maqlaan anigoo ka hadlaaya because sababta oo la weydiiyaa jirta moogtahay so haddii aa u malaysana maskax badan tahay ama aa caqli leeyahay mataqaana abay macaanta videogan inta adiga kuguma noqoseeyo hadda comment-ka igu cuntidoo dhahda mataqaana oh my god adigo dhalama ma waxaas ita ka sheekeynaysa naya businesskayga maskaxdeedu waa laba kala wax la soco hadalkayga la qaado laguma dirsan waxaa sameynaya aniga okay guur xalaal hadaa rabto gabaray boqol mar horena waa ku sheegay hadaa TikTok-ayga daawato ina daawatana waa ku ogaa hadana waa kugu celinaya nin 6 bil ka badan ha shukaansan because 6 bil ka badan hadaa nin shukaansato waa waqti dhumis waqtigu ka dhimay ninkaasito adiga la qasbaysid marba inuu ku arooso faatay gaalada ba isla socoto 40 sano adigu gaalmatid dhaqankaaga maaha maxaa waay sababta nin 4 sano u shukaansanaysa ma isweydiisay maxaa waay faa'iidada ka soo galaysaa ninkaanito tan kale ma ogtahay waa inaad ogaatid intaan nin shukaansan sababta aad nin u shukaansanaysid ma guur baad rabtaa ma tumashaad rabtaa you have to know waxa aad rabtid so markaad ogaato waxa rabtid nin 6 bil ka badan haddii uu ku shukaansado mataqaana ninkaasi waqti dhumsu kaaga jira waxyaalo kale ka raba saaxiibay ran thank you next day ninka ku xiga shukaanso nin intuu banaanka ka taagan yahay ha u qabanin wixii aad u qaban lahayd marka aad xaaskiisa noqoto because nimanka Soomaalidu way jilicsan yihiin sorry wiil inaan caynay ma xaqiiq waay nimanka Soomaalidu way jilicsan yihiin mid kasta ay hooyadiisu ka soo tagay wuxuu raadinayaa naag booski hooyadiis u buuxisa so maadaama waa bad ogtahay marka hore wuxuu ninkaanita u socdo sababtu u rabo inuu u guursado jacayl inaysan hayn wad ogtahay nimanku waxa ma jeclaadaan nimanku waxay jecel yihiin marba meesha wax uga diyaarsan yihiin nimanka iyo naagaha qalbigoodu isku mid maahan way kala duwan yihiin so marka waxaan ku dhihi lahaa aniga gabar Soomaali hadaa tahay jooji shaqada aad ninka u qabanayso ya marka uu banaanka ka joogo jooji hooyo aad u noqonaysa ninka hooyadiis matid naagtiisa tahay nin for example nin markuu ku soo arooso guriga aad degan tahay ha keenin adiga isagu baa inaad guri isla raadsataan naagaha Soomaaliya jooga mataqaana marka la arooso guriyaha hooyada looguma imaado guri baa loo kariyaa loo gogla adiga maxaa saa ka duway gabdhaha qurbaha joogow idinku adoo hadaa guri haysatid why aad ninkii shaqadiisii ugu fududaynaysaa oo gurigii aad deganeed aad ugu soo raraysaa instead of saying wareer waxaan ku sheegaha ani adigu as aroosnay gurigan deganahay isla ma degayno ma fahantay anigii adigu guri baan isla raadsanaynaa banaankaas aan guriga wada raadsanaynaa banaanka markaad joogteen waxa ma tiinin guri xalaal uu guursaday cambarkii uu rabaa soo shaqadii ninnimo ee loogu talagalay ee looga baahnaa ayuu qabanayaa oo ah guri inuu ku soo raadiyo uu ku gogol uu ku waco bugasata asaadan tale imagine haddii uu banaanka markuu ka joogo ninkaas inta dantiisa ka gaaro waad ku qasban tahay inaad gurigaaga keento because waxba ka marabo hadhow waxa taagantay ninkayga ima ixtiraamo ninkiiba ijiid gareey because abay macaanta sababta waxa keenaysa mataqaana markuu banaanka ka joogay ba waxaad u qabatay wixii aad u qaban lahayd markaad xaaska aad tahay naagaha Soomaalidu waxaad iska dhaaftaan nimanka aan idin qabin ee banaanka ugu qabanaysaan shaqadii xaasnimada vente ninkaanito hooyo raadinaya hooyadiis ma noqon karto wax noqon karta xaaskiisa balaakiin marka uu ninku banaanka ka joogo shaqadii aad guriga markaad joogto xaaskiisa aad tahay aad u qaban lahayd hadaad u qabato hooyadiisu ku arka kugu soo degdega barina maxaa imaanaysa inaan lagu caawinin in lagu jiid gareeyo in been lagu sheego
inaa kale lagugu soo dul arooso sababtana waxaa keenaysa waxaa marka xiisa badan kuma hayo fahantay the reason why xiisa badan kuuga hayna mataqaana adoo banaanka joogo wax kasta kaa soo helay so abay maanta daarabtireerkaagu inuu dhaqmo hadaa rabtid na fiicanna heshid I'm not gonna say nimanka Soomaaliyeed oo dhan xun because waxa arkay gabdho oo niman qabaan oo sanad kasta fasax la geeyo oo gaariyaashay wataan iyo guryaha ay degan yihiin aanan malaynaynin Soomaalina waay fahantay so dhibaatadu hadda kor Soomaaliyeed mataqaana nimanka kaliya maaha dhibaatadu waa idinka because waxa la idin la dhaqmaa mataqaana sidii aad naftiina aad ula dhaqantaan nin marka isagoo banaanka joogo cunto karinaysid guriga u dhaqaysid saaxiibadiisa casuumaysid fahantay aleedahay maxaa cuntay maxaa cabtay oo kuleeyahay isoo doon oo doonaysid asoo uber soo qaadan kara highwayga inaa korto darram abay maanta waxaas dhan jooji nin waxaa loogu talagalay adigana nin waxaa loogu talagalay adigana naag loogu talagalay haddaan ku sheego yaabisa inkastood ogtahay nin waxaa loogu talagalay waxa uu raba inuu u shaqaysto naag haddaa tahayna waxaa lagugu talagalay inaad fariisato oo sidii boqorada inaad labada lugood iskor saarato aad fiirsato ninkaasi iyo dhaqankiisa iyo siduu kugu soo shaqaysanayo because ninkii aan waqti ku gelinin inaad guursatidba maahaba because ninkaasi to bari uu kaa tagaya hadda hadduu taga maxay ka galay because idinka igu wareersan habeenii maal idinka ay weydiinaysiin nin maxay ga tagnina igu soo celinaysaa u soo xishta so sheekadan inta adiga le kaa keenay taasi tataala waay qodobka labaad fahantay waxa waaye gabdhaha oo dhahaaya ninsa isku jeclaysiya abaya macaanta uma baahno qof inaad jeclaysiisid waayo ku sheega sababta waxaad u baahan tahay kaliya waxa waaye mataqaana kuma dhahaayo dareenka bini'aadamku ma jiro kuma dhahaayo in lama jeclaado kuma dhahaayo no way dhici kugu dhici kartaa qof kastana ku dhacda balaakiin waxaa la dhahay bini'aadanka qofkaad xiriirka la leedahay maskaxdaada waxa ku jira sida ay tuu kula dhaqmaan which means hadda haddii aad dhehaysid oh ninkayga ma aaminsan uu jiid kareen ninka uu jiid kareynaya haddaa dhehaysid waan farxo badanahay ninkaan uma qalmo ninkaan inta saa aad ku sheegayso ku arkaa so qof markaad aragtaa aad waqti geliso eed ku mashquusho eed maanta dhan daba socoto of course kuma rabo ninna horena waan kugu soo sheegay haddana waan kugu celinaa wuxuu rabaa wuxuusan heli karin so ismashquuli haddii aad xataa mataqaana jacayl u dhimanayso ood rabin ood weydo waxaad isku mashquulsan mataqaana music inaad dhagaha gashato mataqaana gurigaa ka shaqee nadiif ha ahaado gurigu dib isku soo dhexdhig dib u kala hagaaji banaanka u bax musqusha oo shalay dhaqday haddana marka la dhaq mashquuli maskaxdaada wax akhri film fiirso music dhagayso meditation isku mashquul haddaad ninkaasito aad foxka maskaxdaada mataqaana ku jira aad kasii jeediso waxaad arki doontaa ninkaas ku daba cararaya because adduunkaaba iskaasaba adiga laftarkaaga qofkan ku rabina rabtaa so intaad maanta dhan ku jirto mataqaana sideen isku jeclaysiyaa message-kayga muu soo jawaabin saana igu dhahay oo inuu qaado mataqaana ii sheeg message-da u dirta iyo waxaa ku dhasay waraantaad u dirto nimanka saaxiibadiis u tusin uu leeyahay tana igu waalatay maxay rabtaa naagtaanito of maanta dhan isaawacaysa lagu dhihi lahaa mataqaana waxa kaaga fiican inaad naftaada waqtigaasayto aad geliso because qof kasta oo bini aadan wuxuu rabaa qof dhammaystiran oo noloshiisu dhisan tahay oo meel taagan so waqtigaas ninka aad jeceshahay inaad ka soo qaadatid baawrka ka soo celishatid mataqaana naftaada sii oo waxaad dhahdaa waxaan hay naagtaasayto naagta quruxda badan leh indhahayga fiiri sankayga fiiri naasahayga fiiri baatiga inaad iska qaadid dhexdeeda fiiri naasidaanaad u eg tahay ninkaanayto la-aantaada waxa ma noqonayo ninkaanayto aniga la-aanteeda waxa ma noqonayo wacalkaan fiiri maalintaan soo kaxaysanayay ee shukaansanayay iyo maanta siduu egyahay ninkaanayto aniga la-aantii ma noolaan karo ninkaanayto aniga la-aantii ma seexan karo ninkaanayto aniga la-aantii ma cuni karo ninkaanayto aniga la-aantii ma cabi karo which is true because waxaa tahay mataqaanaa naagtaasaa tahay meesha taagan ee saas u qurux badan saas u eg so life ina aado way mugtahay sheekada waa jeclaan lahaa inaa idiin sii wado oon idiin dhameeyo oo waxaa ku dhatiraba balaakiin حلقتنا إذا ما هم بلاكي وقت ما هستموكت I have to go live بوا إذا نشعل هاي قبل مفهنتي وإذا نشعل هاي نفتي نكون مشغولة